waxaa saaka aroortii isku rasaaseeyey isgooska Banaadir guri u dhow oo isku haysteen laba maleeshiyo dhulkaas oo labada maleeshiyo ay ku dagaalamayeen waxaa durbadiiba soo dhaxgalay ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo diyaar u ahaa inuu difaaco dadka ku ganacsanaya eeriyadaas dhulkaas oo labada maleeshiyaba ay qolobo sheeganaysa inay milkiyadiisu leedahay laakiin hadda uu gacanta ku hayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed israsaasayntii saaka ku dhaxmartay goobtan waxaa ku dhaawacmay kuna dhintay dadyo goobta ku ganacsanayay ilaa iyo 4 qofood goobtay ku dhaawacmeen dad oo ay ka mid yihiin saraakiil booliiska Soomaaliyeed ah saraakiishaasoo dhaxgashay labada maleeshiyo diriraysay hadda goobtii waxaa gacanta ku hayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed wax dhibana kama taagna si loogu soo celiyo si degnaashihii iyo ganacsiga goobtana waxaa hadda ku howl jira ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo iska kaashanaya sidii nabadda iyo xasiloonida bulshada Soomaaliyeed loo sugi lahaa marka wax kale problema ma jiro dagaalkan wuxuu ku koobnaa oo kaliya dhulkaas ay isku haysteen labada maleeshiyo dadweynaha iyo bulshada qaarkood ee isticmaalaya ereyga ah ciidanka dawladda israsaaseeyay ma aha shakhsi kasta oo wata dareeska dawladda ama darees dawli ama military ahaado booliis ahaado ma noqon karo askari dawladda waxa lagu noqon karaa qofka fadhi iyo heekal ka tirsan yahay heekalka iyo fadhigiisa markuu ku sugan yahay uu askari yahay laakiin maleeshiyad watay dharka ciidanka militariga ah ayaa isku rasaaseeyay goobta waxaana soo gaaray ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo dhaxgalay labadii maleeshiya qaar ka mid ahna hadeertaan lagu daba taagan yahay goobihii ay u baxsadeen insha Allah waan idin soo socodsiin doonaa wixii ku soo kordha ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhaawacyadina waxay geeyeen isbitaal Madiina dadkii inta dhimatayna isbitaal Madiina marka la socda ma ahan wax siyaasad iyo ku saabsan barnaamij kale waa dhulkaas ay isku haysteen labada maleeshiyo waxaan hadda gacanta ku hayo maamulkiisa dhulkaas ciidanka booliiska